wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abiykar Nuur ayaa shaacisay in qofkii saddexaad ee qaba caabuqa corona laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiir Fawziya oo ka qayb galaysay barnaamij ka baxaya TV-ga dowladda ayaa sheegtay in shalay galinkii dambe lagu soo wargeliyay in qof ajnabi ah oo qaba cudurka coronavirus laga helay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in qofka ajnabiga ah laga helay calaamadda cudurka isla markaana haatan lagu karantiilayo gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. dhanka kalena qaramada midoobay ayaa markaasi shaacisay in qofka laga helay cudurkani uu ka mid ahaa shaqaalahooda oo ahaa markaasi qandaraas la ganacsade kaasi oo ku sugan gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in qofkaasi la karantiilay 8 maalmood ka hor baaritaan la sameeyay laga helay cudurka baaritaankaasna loo marsiyay si loola socdo dhaqdhaqaaqiisa. qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si dhab ah u qaadaysaa COVID-19 faafidda adduunka isbuucyadii la soo dhaafayna waxay diyaarisay howlgallo caafimaad iyo nidaamyo taageero ah suurtagalnimada in sidan oo kale ay dhacdo. ahmiyaddeena ayaa ah inaan markaasi daryeelno qandaraaslaha iyo inaan ka hortagno faafitaan kale oo fayrisa. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in qaramada midoobay iyada oo la sii marsiinayo xafiiska maxalliga ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO ay la shaqeynayso mas'uuliyiinta Soomaaliya sidii loo diyaarin lahaa nidaamyada caafimaad ee dalka si loo xakameeyo loona yareeyo wax kasta oo faafiya cudurka COVID-19. waa Mahad Dhukane Yuusuf, CWTV magaalada Caabud.